السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتك وشرت ميشن فرين أند فاميلي waxaan leeyahay galab wanaagsan. galabta waxay soo booqday walaalkay Axmed Cali Saciid Ilkacsi. Axmedow waxaad ka sheekaysaa waayaha adduunka iyo maanta horta soo dhawow marka hore aad booqashadan soo booqatay aad baad ugu mahadsan tahay al-abwaan istaad mulaxan waxa weeye ninkii hadaan reer Minnesota nahay Soomaalida oo dhan ninkii nasoo gacan qabtay oo maalinkan maanta naga mudan inaanu ku caana shubno one day insha Allah bidmillah kariin. Axmed oo fankii uu qabal farqii hore farqa dambe bal walaalo maanta wax ka dhee bilaa caleek. Assalaamu alaykum horta waan kaaga mahad celinayaa soo dhaweynta nabaadidweynaha waan mahad celinayaa ilaahay waa mahadle horta in badan baa waxa mataqaanaa aan maqlaa iyadoo la leeyahay fankii hore iyo fanka dambe marka la soo bandhigayo fankii hore ayaa mataqaanaa sida ahaa fanka dambe waa sida laakiin dadku qof baa aragti u leeyahay anu soo warkaan sheegaya maanta nacam bilaa fankii hore waxa ay isku taxalujin jireen dadka hal abuurka ama abwaanada ah inay eriyada meel dheer ka raadiyaan maalin baa Allah u naxariistay waxaan xusuustaa abwaan sangub ayaan heestusay markaas wuxuu yiri ereyga heesta ku jira meel dheer baad ka raadisay marka wuxuu waa erey qorqoraa la yiraahdaa marka ereyga meel dheer ka raadiso ereyga waxa ku tahay qorqode oo si weyn baad ereyga u raadso meel dheer baad soo saartay Allah yaasik marka markii hore waxa la raadin jiray ereyada waaweyn meesha ay ku jiraan ayaa qorqode lagu noqon jiray oo meel dheer baa laga raadin jiray laakiin maanta waxa la raadiyaa oo dhalinyartu mataqaanaa ay ka sameeyaan heesaa intooda badan erey la daayacay marka ereyga ku qorqodayso iyo marka ereyga daayacdo erey baa dulmanaa ereygii dulmanaa haddii la soo qaaday oo suugaantii lagu daray oo la shaqo geliyey u malayn maayo inay suugaantii mataqaanaa daciiftay because erey meel yaalay oo dulmanaa oo iska daciif ahaa oo ciyaalka xaafaddu ay isticmaali jireen ayaa la soo shaqo geliyey marka erey kasta oo kamid ah Soomaaliga haddii la shaqo geliyo suugaantii waa halkeedii gartay hadda tusaale nin baa wuxuu yiri xalayt korona aygii maradii kaamil reeruhii kumbuskii ardaygii miyaa lagu keliyey anaa marka waxaan hees ba sameynaya waxaan kun nin hadba min ku keen tayo isku ereygan kun iyo kululu wala ba erey ku jira Soomaaliga nacam bilaa mid kasta wuxuu ka turjumayaa mataqaan laakiin way kala miisaan cusub tan garaya gartay qaybta labada socda